السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaabka aad u practice gareyn lahayd demo account. Halkan waxaa ku jirto lacag 3,000 ah oo balansiga ah aad u jeedin 3,000 oo demo account ah waay. Dabcan demo account qof walba way furo kartaa haddii aad u baahan tahay casharadii hore si fiican u soo daawo qaabka loo furto. Hadda waxaan tusayaa markaa qaabka aad practice badan u sameyn lahayd ama analysis aad u sameyn lahayd. Tusaale ahaan hadda kale waxaan soo qabsanaynaa goldiga lacagta ugu hooseyda oo symbol-keedu uu yahay XUSD. Waa tan ugu hooseyso ayada markaan ku dhufano chartigeedaan tegaynaa. Kabacdi halkan time frame-ka dhinaca bidixda kaga muuqdo time frames 1 minute markaad dooratid waxay ka dhigan tahay halkii candle ama gaduud ah ama buluug ah aad u jeedin cagaar ah nooc waa kaado. Yacni waxay ka dhigan tahay markaad time-kaas aad dooratid in uu soconayo. Yacni haddaad 1 daqiiqo dooratid candle-kaas wuxuu soconayaa 1 daqiiqo. Waxaan idin sharaxayaa qaabka aad signalada markaan soo dirayno ay u shaqeeyaan. Signalada anaga markasta soo dirno waxay ku jiraan 3 waxyaabood waay. 3 waxyaabood waxay ka kooban yihiin number 1 entry-ga ah meesha suuqa laga galayo, number 2 SL oo ah stop loss, iyo number 3 oo ah take profit. Take profit ka wuxuu noqon doonaa 3 qayb. Take profit 1, take profit 2, take profit 3 iyo 4 haddii doonto open ah mararka qaar. Mararka qaar 3-ga open ka soo dhignaa. Inta badan 3-ga open ka soo dhignaa. Yacni 3 ma gaarsiino. Haddii aad 1 ka hesho ka bax suuqa. Saas ay u badan. Marka sidii u galaysaa halkaas ayaad taabanaysaa halkan ayaad tegaysaa ama si aad u fahantid shaashada dhexdeeda riixaysaa tweet ayaa ku soo baxayo kaas ayaad taabanaysaa. Hadda waxaan ku jiro waa MT5-ki. MT5-ka halkan waxaa hadda ka muuqato price, stop loss, take profit. Halkan waxaa gelinaysaa stop loss-ka, halkan waxaa gelinaysaa take profit-ka. Kadibna waxaa leedahay place order. Halkaas waxaa ka dooranaysaa lot size-ka ayaad ka dooranaysaa. Lot size-ka markaste waxa waaye midka ku xukumo waaye oo yacni lacagtaada riskiga aad uga badbaadin kartid. Haddaad lot yariis ku gashid iyo haddii aad lot weyn ku gashidna khasaaro weyn sidoo kale kala kulmi kartaa. Hadda waxaa saaran buy limit sida u jeedid laakiin si ugu bedelaysaa isaga la taabanaysaa waxa ku soo baxaya suuqa meesha hadda uu marayo markaad inaad ka gashid waxaad dooranaysaa market execution. Haddii aad rabtid trade inaad u gashid buy limit oo lagu yiraahdo buy limit u gal macnaheedu waxa waaye trade hoos u socday oo candle-diisa guduud yihiin oo hoos u socdo hoos u daadanayo in aad markuu soo laabanayo aad la soo laabatid oo dhanka buy-ga kor ula soo laabatid. Markaas waxaa loo isticmaalaa buy limit. Trade hoos u socday baad isbaaro hor u dhigatay markuu meeshii imaaday falaarta meesha dhigatay ama meeshii suuqa aad ka gal point-iga aad rabtid inaad ka gashid markuu imaaday ayuu automatic buy furaya. Markaas hoos u sii daadan karaa oo yacni stop loss-ka ugu dhufan karaa ama sida rabto noqon karayo oo soo laaban karayaa wuxuu sameyn karaa take profit ka qaadan kartaa. Okay, sell limit-kani waa taa bilcagsigeeda. Marka wax ku soo haray buy stop. Buy stop waxa waaye suuq buy u socdo point aad rabtay oo sin weli soo gaarin meeshaas markuu suuqa uu imaado buy u sii gal waaye buy stop. Sell stop-kana waa taa cagsigeeda oo ah suuq hoos u socday ayaad horay isbaaro u sii dhiganaysaa. Aad leedahay point-igaas markuu soo gaaro sell-kiisa horaha ugu sii socdo. Sell stop saas waaye. Markii aad yacni practice gareynayso waa inaad u isticmaashida real-ka lacagtaada oo kale inaad ugu xisaabtantaa sababtoo ah haddaad iska gashid yacni waxba experience ah ma kaaga kordhayan suuqan sababtoo ah lacagtan waa fake. Marka waxayna u qaab eg tahay lacagtaada caadiga ah ay u qaab eg tahay. Tan haddaad maanta wax ka keenaysid
taada caadiga ahne ha isku khasaarin, waxba kama keenaysid anaa ku dhahay. Sababtoo ah tan markaad yacni kalsooni ku qabtid suuqa inaad isku hubtid oo suuqa yacni lacag fiican aad ka samayn kartid. Haddaad $5 alaha ka dhigay aad ku bilowdid, waxaad ku bulaalin kartaa kumanaan kun oo dollar ayaa jirsan. Chart analysis-ka, newsaska inaad si fiican ula socotaa, dabcan wax badan ayaad ka faa'iido.